حلقات هردعة taxanaha baraarugu waxaanu idinku soo gudbin doonaa haddii aabayd mo arrimo sir ah oo aad wax badan ka ogaan doontaan oo ay waajib ku tahay qof kasta oo muslim ahay inuu ogaado. arrimaha aad ka bogan doontaanna waxaa ka mid ah sababta ay u duntay khilaafada islaamku, dhulka muslimiintana loo kala qoqobay oo xuduudaha lagu kala qayday. sababta dawladaha islaamka maalinba mid ka mid ah loogu duulayo oo loo baabinayo inta kalena ay u daawanayso, sidoo kalena sababta muslimiinta khilaafka looga dhex abuuray ee ay isugu maciini waayeen. sababta ka dambaysa in muslimiinta lagu dhex abuuro waslad qalaad oo ah dawladda Yahuudda ee Israa'iil. cadaawadda ibliis inoo hayo, digniinta eebbe inooga digay, ballanqaadku uu ilaahay hortiisa ka ballan qaaday iyo saamaynta uu adduunka maanta ku leeyahay. sababta uu dajaal cawar u noqday fitnada adduunka ugu weyn, nebi kastaana uu qoomkiisa ugaga sii digay, iyo saamaynta uu maanta adduunka ku leeyahay. sababta ka dambaysa in bulshada islaamka loo kala qaybiyo laba dabaqadood oo kala ah culimo iyo caamo, ama aqoon-yahan iyo agnaan. sababta ka dambaysa in muslimiinta waddamadooda la nacsiiyo oo Yurub iyo dhulka gaalada loo nuuriyo. waxa aad ogaan doontaa xaqiiqada ka dambaysa erayada la isku dago ee xorriyadda, walaaltinimo, isjeclaan, sinaan, cadaalad iyo xuquuqda aadamaha. waxa aad dheehan doontaa cidda ka dambaysa qalaalaasaha iyo dhibaabaha daafaha dunida ka dhacaya iyo sababta loo fasahadinayo dunida. waxa aad ka bogan doontaa sababta ay awoodda adduunka ugu dhex wareegayso reer galbeedka. waxa aad fahmi doontaa dunida kugu xeeran sharka ka aloosan iyo kaalinta aad ku leedahay adiga weeye daawade. waxa aad u daymo yeelan doontaa Yahuudda, higsiga ay leeyihiin, iyo sixirka Kabbala ee Yahuudda ee loo yaqaano sixirka madow.
waxa aad fahmi doontaa dacaayadda islaamka laga faafiyey ee argagixisada cidda ka dambeysay qaraxii sarihii mataanaha ahaa ee Mareykanka iyo sababta loo qarxiyey. waxa aad dugan doontaa cidda ay u shaqeeyeen qaramada midoobay, warbaahinta adduunka, ganacsatada waaweyn iyo shirkaduhuba. waxa aad fahmaysaa sababta nolosha oo dhan loogu xidhay korontada iyo xataa lacagtii looga dhigay hawo koronto ku shaqaynaysa. waxa aad fahmaysaa murtida ku duwan astaamo badan oo laga yaabo inaad badankooda adeegsato ama aanad daadin. waxa ku hoos laaban waxaana ka mid ah shaambada doolarka iyo erayada ku qoran macnahooda. buuraha ahraamta Masar iyo macnaha saddex geeska. sagxadda madowga iyo caddaanka islaag ah. xidigta Yahuudda ee lix geesta ee ay ula baxeen xidigta Nebi Daawud. astaanta isdhamaystirka ee tabnaanta iyo tognaanta ama negative iyo positive. astaanta xisbiga Hitler ee Naaziga. qolfoofka iyo dhaadadka oo aynu u naqaano astaanta digniinta. shangeesta ama xidigta oo badiba caalamada adduunka ku xidhan, inaguna aynu ka dhiganno mid u taagan shanta Soomaaliyeed, caalamada Soomaalidana aad ugu badan. waxaad ogaan doontaa tiradan macnaheeda iyo meelo badan oo aan la dhaadaynin oo ay ku qarsoon tahay. waxa aanu soo bandhigaynaa xaqiiqooyin raadin xun qalbiga iimaanka leh ku reebaya oo uu ka muruganayo, balse ha ilaawin in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey qaacido ah inaynan quusan. arrimaha aanu daaha ka faydi doonaa maaha qaar aynu leenahay aynu ka hortagno ee qof walba naftaada, ehelkaaga iyo haddii aad karto ciddii aad wanaagga la jeceshahay gaadhsii oo uga dig. xaquusanin, niyadduna yaanay kaa dhimanin. ogowna in culays kastaba fudayd daba yaallo, wax waliba ay yihiin tijaabo uu Ilaahay ku qiimeynayo heerka iimaankeenna. arrimahan idinkuma soo gudbinayno si aanu nolosha idin nacsiinno, ee waxa aanu daaha uga faydaynaa si aanu idinku bushaarayno in gabagabadoodii ina soo food saartay. wax waliba waxa ay ku xidhan yihiin iimaankeenna iyo hadba heerka uu marayo. haddii aynu muslimnimada ka dhab sheegnana guusha innaga ayaa u hadhayna.
waxaanu ku faanaynaa faafinta xaqiiqada daahsoon iyo daahkafaydiista dabiinada loo daadiyey bulshadeeda iyo u gargaarista diinteeda. fadlan nagu garab istaag oo faafi arrimahan si ay dhammaan bulshadeennu u baraarugaan, hurdada la iskaga nabayna ay uga toosaan, nolosheenna adduun iyo teenna aakhirana ay u hagaagto. la soco xalqadda koowaad iyo bilowgii sheekada. dhegihii ilaahay waaniyo ayaa waansan.